gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland anigoo muddo ilaa 15 sano ah ku soo dhex jiray garsoorka ciidamada qalabka sida shaqo ahaan waxaan ka soo bilaabay askari oo biyeyste dambi baare taliye saldhig kaaliye maxkamadeed gudoomiye maxkamad shanta gobol ah ilaa garsoore maxkamad ciidamada qalabka sida waxaan ahay nin muddo ka shaqaynayay bahda garsoorka ciidamada qalabka sida waxaan ilaahay uga bariyaa inuu naxariisto gudoomiyihii hore maxkamadda ciidamada qalabka sida sareeye guuto Siciid Abyan Cigaal oo sanadkan dhintay sidoo kale in ilaahay uu caafiyo oo una boogadhayo gudoomiyihii hore ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ahaa gudoomiyihii maxkamadda hore ciidamada qalabka sida ee dhaawaca waxaan rabaa inaan idinla wadaago qorshe hawleedkayga oo ah mid kooban maadaama waqtiguna uu yahay waqtiguna gaaban yahay mas'uuliyiintuna ay badan yihiin anigoo og shaqadan baaxadda leh ee garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida anigoo og duruufta iyo garsoorka ay ku shaqeeyaan saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida anigoo la kaashanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo ku dadaalayna cabsida ilaahay waxaanu ka shaqayn doonaa inaanu gaarno go'aano ku salaysan shareecada islaamka iyo qawaaniinta dalka u degsan diyaarinta qorshe hawleedka oo ah shaqada mid dhow iyo mid fog number 1 waxaan bedeli doonaa insha Allah habkan waa yeeloobay ay ku shaqeeyaan maxkamadaha ciidanka qalabka sida oo aan la jaan qaadi karin habkan 2023 haday tahay xogta iyo kaydinta habka casriga ah in ay la jaan qaadaan waxaan u bedeli doonaa waxqabadka insha Allah waxa kamida waxaan diyaarin doonaa xeer nidaamiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xeerariyashooda sida uu qabo qodobka 187 ee xeerka dastuurka dawladda Puntland 4 waxaan xiriirkooda wanaajin doonaa maxkamadaha caadiga ah iyo wada shaqayntooda sidoo kale waxaan wada shaqayn dhow la yeelan doonaa saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo fadhiyadooda kala duwan annagoo og ama aaminsan in ay shaqadu ay tahay mid isku xiran haddii aan la wada shaqayna ayaan shaqadu ay noqonayso ay gaabgalayso waxaan isbedel dhab ah oo muuqda ku samayn doonaa garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan ku samayn doonaa isbedel dhab ah oo muuqda dhan kasta uu yahay sidoo kale waxaan kor u qaadi doonaa xirfadda garsoorayaasha ama garsoorka iyo xeeralinta xirfadleyda aqoonta garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida anoo la kaashanaya ilaahay ka sokow cid kasta oo ay qusayso waa in kor loo qaada garsoorka maxkamadda hadday tababar tahay hadday tahay korsooyin in kor loo qaado garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida anigoo ku kalsoon hay'adaha ay qusayso waxaan kor u qaadi doonaa adeega garsoorka iyo si loo daboolo baahida garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku shaqeeyaan in baahida adeega iyo in kor loo qaado anigoo la kaashanaya cidda ay qusayso waxaan ku dadaali doonaa in la helo dhismayaal dawladeed oo ay leedahay maxkamadda ciidamada qalabka sida maadaama ay ku jirto dhismayaal kiraysan halkaasna si ay maxkamadduna u hesho dawladda kharashkuna uga baaqdo maxkamadduna u hesho dhismayaal ay leedahay maadaama ay dawladdu leedahay dhul badan oo ay u baahan tahay in loo dhiso keliya waxaan isla xisaabtan buuxa ku samayn doonaa garsoore kasta ama garsoorka waxaan tallaabo buuxda oo sharciga waafaqsan laga qaadi doonaa xubin kasta oo ay ku caddaato shaqo gudasho la'aan
ku tagrafal awoodeed iyo wax kasta oo gaf ku ah anshaxa garsoorka ama buusa biteer u isticmaasha waxaa la marin doonaa tallaabo sharciga waafaqsan waxaa tallaabo sharciga waafaqsan la marin doonaa sarkaal kasta oo la yimaada amar diiddo isagoo isticmaalaya hubka ciidanka dawladda waana khiyaamo qaran sarkaal kasta oo la yimaada amar diiddo waayo sharcigu ma aha mid qofna u daneeya qofna ka shaqeeya askariga iyo sarkaalku waa inay u siman yihiin sharciga markii dembiga ugu weyn markii askariga lagu soo eedeeyo amar diiddo uu xabsiga u galo ciqaab u muto sarkaalkii ugu sarreeyey oo ciidanka watayna uu wuxuu rabo sameeyo oo hubkii dawladda ku sameeyo ma noqonayso isaga waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan ma noqonayo nin ka gabada ama ka leexda shaqadiisa iyo waajibaadka ciidanka isla xisaabtanka wuxuu ka bilaabanayaa sida garsoorka oo kale saraakiisha ku tagrifasha awoodda ciidanka oo u adeegsata ama dano siyaasadeed ama dano qabiil ama dano cid kale ay leedahay sharciga uga gaban mayno waana marinaa insha allah sidoo kale waxaan gacan bira ku qaban doonaa oo aan jixin lahayn argagixisada iyaga waa isnaqaanaa oo dee waxa weeye war iskuma kayilaabna marka waxaan ballan qaadayaa kitaabkaan maray oo sharciga aan ku maray inaan qofna aanan ugu debcin qofna aanan ku adkayn qofkii ay ku caddaato oo argagixisaa waxaa si sharciya loo geynayaa tiirka cadaaladda waxa uu leeyahayna wuu ka helayaa sidoo kale waxaan degdeg u fulin doonaa oo kiisaska uu sheegay taliyaha ciidanka booliska hadday yihiin rafcaanlayaal iyo haddii ay yihiinba fulinba hadday yihiin si degdega baan uga jawaabaynaa laftigayagu waxa weeye waxaan rabnaa inaan shaqada aanu dardar gelino sidoo kale waxaan isla xisaabta ku samaynaynaa sarkaal kasta ama saraakiisha caadaysta inay la tagaaniin hubka iyo gaadiidka dawladda qof kastana waxaa ka sarreeya sharciga sida uu qabo qodobka 2 ee dastuurka Puntland saraakiisha iskala tegayso hubka ama la goosanaysa ama la fikanaysa ama iibsanaysa iyagana waa la xisaabtami doonaa insha Allah taala waxaan kale oo tallaabada ka qaadi doonaa sarkaal kasta oo daahiya hor istaagid ku sameeya shaqada waaramada maxkamadda ciidanka iyo maxkamadda caadiga ah taasoo ay ka dhalan doonto ku tagrifal awoodeed sidoo kale waxaan tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaynaa saraakiisha shaqaysa ee daahiya shaqada u hoggaansan waayay awaamirta maxkamadda ciidanka iyo maxkamadda caadigaaba waaramada ka soo baxa waa in si degdega loo fuliyaa war dawla waraaq buu ku yaallaa waxaan ku hadli doonaa waa sida afhayeenku uu sheegay xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida waa amar diido goob dagaal oo dil toogashaa soo maaha kaasaa horta waxa weeye marka dil badan oo toogashaa rag waa soo baxaya insha allah waana la fulinayaa sidoo kale waxaan rajaynayaa inaan xiriir wanaagsan wada yeelanno oo wada shaqayno maxkamadda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo aanu ka helno qoondada ay ku leedahay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland sida tababarada ay ku soo baxa magaca dawladda Puntland iyadana waxaan rajaynaynaa inaanu ka helno maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya annaga wada shaqayn dhow la yeelan doona waxaan ku soo gabagabeynayaa inaad insha Allah igu ducaysaaniin xilka ilaahay inuu ii fududeeyo xaqan ilaahay inuu waafajiyo علي بن أبي طالب محيري حاكمك وصدح هما في النار وواحد في الجنة إن الله يقدر واحد في الجنة إن شاء الله هو لبض النار ترى إنه إلهي وسن
uusan ilaahay naga baryeelo aniga iyo garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan rabnaa marka anuu shaqada waa ku cusbahay maanta cid taargadii ah ama cid aan gaar u beegsanayo hadday saraakiil dawladeed tahay ama shaqaynaysa yaan loo qaadan qof ku socda dadka shaqaynaya laakiin innaga wixii aynu ku wada shaqayno bay maanta inoo ka bilaabanaysaa sarkaalkii shaqada daahiya hor istaaga waxa weeye sharcigaa la waafajinayaa marka waxaan ku soo gabagabaynayaa in ilaahayna tawfiiqdana waafajiyo wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadda sarena maxkamadda sare dastuurigana aan u wada shaqayno si dhow maadaama anigoo og in ay shaqadu tahay tiim isku xiran oo aan cidna loogu danaynayn nin kastana meesha uu leeyahay bay insha allah laga waafajinayaa wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu